maamulka dawladda hoose degmada Oog ayaa maanta bilaabay olole ballaaran oo dhanka nadaafadda ah kaas oo ay kor ugu qaadayaan fayadhowrka iyo nadaafadda deegaankaasi. sidoo kale maamulka dawladda hoose waxay bilaabeen barnaamij biyo-gelin ah kaas oo laga hirgelinayo xaafadaha kala duwan ee degmadaasi Oog. maayirka degmadaasi Oog Cabdinaasir Afrikaani iyo xogayaha dawladda hoose degmadaasi ayaa ka warbixiyay howlgalladan ay maanta bilaabeen. halkan saaka waxa ka socda olole nadaafadeed oo balliga iyo magaalada hareeraheeda dhamaantoodba cagaftan iminka hadda ku jirta waa cagaftii degmada Caynaba waxa lagu soo hadii la ku rooyahay soo bixiyay maayirka degmada iyo maamulkiisa xogayaha waxaan ku boorinaynaa bulshooyinka degmada Oog ayadoo ay waayeelka iyo maamul ahaan iyo bulsho ahaan baan iska kaashanay. haddana waxaan ku boorinaynaa bulshooyinka degmada Oog siiba xaafadaha soo xiga xagga balliga in laga daayo qashinka la dhigayo balliga iyo meelihii muhiimka ah ee taangiyada biyaha waa kuwan daajidadii iyo xaafadaha dhexdooda qashinka la dhigayo waxaan ku boorinaynaa laga daayo cidii lagu qabto waxa laga qaadaya tallaabo sharciya wala waqti ganaaxaya. saaka halkan waxa ka hirgalay ka socda olole nadaaf halkan waxay marxaati ka tahay maamulka degmada Oog inuu diyaar u yahay horumarinta deegaanka iyo degmada sidoo horumarin lahaa ayay marxaati ka uga tahay. degmadu waxa weeye degmo dhaqaalaheedu marka hore kab ma laha oo ma qaadato ta kale dhaqaalaha ka soo baxay cashuurtu shaqaalaha dawladda hooseba waxa weeye mushaharkiisa ma anfaco. marka hore halkan waxaanu leenahay kabkii degmooyinku lahaayeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka arrimaha gudaha waxaan ku codsanaynaa in kabkayagii si degdeg ah loo helo waayo waxbaan qabsanaynaa cidii wax qabsanaysa in wixii la hagaajiyo oo la helo waa muhiim. ta kale waxa weeye waxa maanta ay ka wada shaqeynayeen waayeelka iyo odayaasha deegaanka nadaafadda deegaanka iyadoo xilli aynu cudurka coronaviruska aynu ka diyaar garoobeyno lagu jiro nadaafadda in lagu dadaalo dhammaan degmada Oog. khamiis walba waxaanu ka sameynaa olole nadaafadeed oo xagga gaadiidka oo dadka qashinka guro. waxaanu halkan iyagana ugu mahad celinaynaa maayirka degmada Caynabo oo ololahan aanu qaadnay garab iyo dhiiri lagu siiyay isaga iyo xogayaha degmada. midda kale waxaanu ku guuleysanay haddana degmada Oog maamulkeeda annagoo la kaashanayna hay'adda Oxford annagoo la kaashanayna waxaan ku guuleysanay in aanu isku dayno in la macaaniyo biyihii riiga. halkan waxa ku jira kaanto dharkan ku jira barbara laga soo rogay waxa ku jira qalab biyaha riiga macaaninaya biyahaas oo soo saaraya maalintii 25 foosto oo biyo macaana. waxaan ugu baaqaynaa yoona baaq u diraynaa deegaanka aanu isku deegaanka nahay ee gobolka Buuhoodle colaada ka jirta wayna dhibaysaa. waxay noo dhibaysaa waxa la yiraahdo abka dhow waxa weeye abka dhow waa deegaan aanu isku xigno wixii Buuhoodle ka dhaca wixii yeela ka dhaca wixii guuleys ka dhacay inta wayna dhibayaan. waxaan ugu baaqaynaa colaada halka ka socota labada reer iyagana waxaan ugu baaqaynaa inay nabadgeliyada colaada halka ku joojiya salaadiinta iyo garaadada iyo waxgaradka ilaa maqashaan baan isku dardaarmanaa. sidoo kalena qaar ka mid ah waxgaradka iyo cuqaasha deegaankaasi ayaa soo dhaweeyay howlgalladan iyo shaqooyinkan ay dawladda hoose degmada Oog ka bilowday gudaha magaaladaasi Oog. maayirka xogayaha gudoomiye ku-xigeenka dawladda hoose degmada Oog waa mahadnaqanaa iyada iyo gobolka Saraar labadaba waa mahadnaqan. bilicda magaalada kor loo qaadayo nadaafadda kor loo qaadayo hawshaas ay halkan wanaagsan ka sameeyeen oo ay u dadaaleen. ilaahay baa mahadle nadaafad aad u wanaagsan oo bilicda bay iska sameeyeen. hawshiina waa taa gacanta lagu hayaa dee cudurro iyo caafimaad hadhowna waxa wanaagsan in reer Oogna ay arinta hadhowtu ka shaqeeyaan oo cid u qaybiyaan. maanta waxa lagu qabanayaa xaflad nadaafadeed weeye waxa lagu qabanayaa degmada Oog waxa soo qaban qaabiyay gudoomiyaha degmada Oog xogayaha gudoomiye ku-xigeenka waayeelka ayaa soo qaban qaabiyay. waxa ka shaqeynaysa cagafta waxa nagu caawiyay degmada gobolka Caynaba iyo degmadeeda. halkan sida la sheegay balligii oo aad caafimaadkiisu u xumaaday baa maanta laga shaqeynaya. jaamac boodacade warbaahinta qaranka Soomaaliland degmada Oog gobolka Saraar.